waad ogtahayo gobolka kan Sool ama dhulkan loo yaqaano SSC waxa weeyaan waa dhul aan marnaba heshiis la gelin Somaliland go'itaanka Somaliland ka go'ayso Soomaaliya aan maaragtay ka qayb qaadan meelay kula heshiiyeen iyo waxay kala saxdeen aanay jirin dad baa warqada been la wareegaya meelaha laakiin heshiiskaas marnaba ma dhicin gobolkaasi waa gobol mal walba wuxuu ahaa doonayay inuu isu taago midnimada Soomaaliyeed dabeedna haddii aan ku soo koobo waxa meesha ka dhacay ma garata nin leh maartay anaa ku leh dal iyo dadba anaa ku leh waxa weeyaan oo ma tashan kartid weeye waxa la isku hayaa dadkana waxay leeyihiin waa tashan karnaayo annaga u madax bannaan arrimaha yaga Soomaalina ka go'ay mayno marka arrimuhu meesha maartay dhibtu ka taagantay waxay warna u go'ay mayno dal iyo dad buuxaanu nahay Soomaali baanu ka tirsannahay idinkana yeeli mayno inaad maartay annaga xagga yaga aad goosataan oo nala go'daan taana marnaba kumaynaan heshiin marka horta qadiyada la isku dilay waa sidaa weeye waxa yaala badan oo hore ka horeeyay baa jiray waxaa jiray meesha in maartay lagu laayay haldoorkii ummadda lagu laayay 120 qof baa lagu dilay meesha qof qor loo soo qaban taas waxay keentay wax la yiraahdo uprising shicibka ay kacaan oo ay yiraahdaan yani dhibtii annaga nalagu hayay tanaaba ka sii dartayba maadaama haldoorkayga la laynayo cid qor loo soo qaban waa loo wadaayo niman dhalinyaro ah baa kacay meesha ninkii u dambeeyay markii lagu dilay meeshii laascanood lagu dilay xildhibaanka hore ahaan jiray dhalinyaradii waa kacday waana dagaalameen dawaas xoreeyeen maanta waad aragtaayo laascanood calankii Soomaaliya ka babanaya maanta oo ay tahay 1 July xalay waa looga banaa dabaaldegay 1 July 26 Juunna waa loo maartay si xorriyad leh oo sharaf la loogu maartay loogu dabaaldegay meel fiican bay maraysaa cidna lama khasbi karo Soomaaliya way is ogaatay cid khasbi kartaa maanta ma jirto SSC goboladan la isku yiraahdo waa gobolada Soomaaliya ka tirsan sinaba uga go'ay maayaan haddana waxa weeyaan daniman ummadda u aabayeelayn baa meeshii soo galay musabixi la yiraahdo waad aragtaa wuxuu ummadda ku soo maartay ku baabi'inayo waad aragtaa cidna muu dhaafin gurihii buu baabiyey dhalinyaradii buu laayay maxaan ku dhahdaa waa nin war criminal weeye dadweynuhuna waa arkaa insha Allah waa la qaban doonaa waa la xisaabtamaya marka walaal arrinku halkaas uu maraya maanta ciidankana saas soo fadhiyaan insha Allah waa guuleysanaynaa ana usaanu qabno haddaanu nahay reer SSC guusha annaga leh absolutely aynka sidaa weeye waxa weeyaan waxay ku doodi jireen intay lafa beena meelaha ka soo guraan yani waana la laayo waana la xasuuqay runtii waxaan qabaa iyaga lama xasuuqin iyaga laga horjoogay inay dalka baabi'iyaan ay Soomaaliya horteedana waa taa in maanta 30 sano ka soo kaban kari laanahay tii ay ka cabanayeen oo ay lahaayeen maxaan ku raahdaa waana lagu sameeyay ayay ku sameeyeen iyadoo taariikhdu waliba modern ay tahay minka oo halbal soo duubi karayo waad aragtaa xabaalaha wadareedka laxsan agteeda boqolaalka lagu aasay waad aragtaa 300 oo kun oo qof bay barakiciyeen waad aragtaa masaajidadii bay gubeen dhulkii ilaahay lagu caabudayay bay baabi'iyeen iskuuladii bay baabi'iyeen xarumihii ummadda lagu adeegayay baabi'iyeen waxba may dhaafinba barka waa xukuumad aanu rabno inaanu la tiigsano maxkamadda adduunka la tiigsano weeye inta u sarreysa ee meesha maamusha waa noo qoran yihiin waana la tiigsanaynaa aanu waa horgeynana maxkamadda ifkana waa lagaga jaraya aakhirana waa lagaga jaraya ilaahay idankiisa saasaan walaal rajaynaynaa marka waxa weeyaan wixii ku doodi jireen waxa kama jiraan maanta iyaga ummadda laynaya weeye iyaga ummad barakiciyay ummadda laayay dadkuna waa nala arkaa ummaddu saas u daawanaysa waa nala arkaa aan aad uga xumahay inaanan dawladda Soomaaliyeed ma garatay qaybtii la rabay inay ka qaadato iyo mas'uuliyadda la rabay inuu madaxweynaha Xasan Sheikh uu iska saaro aan runtii iska saarin dalkan isaga xukuma cirif la cirif waxa la rabay maartay gobol kasto oo yiraahda federaalka kamid ahay inuu difaaco oo boqol dhinac taago bay ahayd nasiib daro ma aanu qabanin madaxweynaha taa mid looga fadhiyo weeye halkii la rabay aanu saan qabo kama uu soo bixin umar dhuwa waase sugaynaa aanu kolley ilaa hadda annaga hawsha wadna dadku iyaga is xoreeyay
iyagaana ma garatay maxaan ku rahdaa dadaalay maasha allah hiil walaal iyo hiil qaran labadaba waa sugaynaa wixii ummadda Soomaaliyeed ka naxay wixii meesha ka dhacay dowladda inaan taakuleeyana waa soo dhaweynaynaa de insha Allah waa guuleysanaynaa walaal waa guuleysanaynaa maasha Allah meel fiican bay maraysaan sidaan qabo wallahi muxuudiino iyaga argagixisa runta marka la yiraahdo iyaga 300 kun oo qof barakiyay iyaga dhalinyarada laayay iyaga ma garatay loo haystaa gariimadii ay ka geysteen meesha marka haddii argagixisa la doonayo in la magacaabo dawa iyaga argagixisa lambar 1 koobka argagixisa Soomaaliya maanta iyaga qaatay awalna waa aynu anagu waa ogeyn inay xiriir la lahaayeen nimanka koonfurta ka dagaalamaya oo gacan saar la leeyihiin waa cadaydo waa mid qarsoon ma buugtan oo ku qoranta dadweynuhuna waa ogyahay marka haddii argagixisa Soomaaliya laga raadinayo hargeysa fadhiyaan hargeysa loogu tago halkaas ay fadhiya argagixisada adduunku sida weeye walaal de waxa weeyaan adduunuhu ugu baaq waa run in maaragtay meesha kala baxaan ciidamadooda oo ay meesha ka soo yimaadeen oo ka soo duulaan dib ugu noqdaan kori hospital loogu sheegay laakiin de buuse ma fahmo maxaan ku rahdaa ما فهموا يسووا هذا له ونين مارت ربحان ودفتون دونيا واي الحمار ما يفهم شيء إلا بالعصا ما قرأت نين كان إلا اللي دلوم يعني أو حوق لغة قادم يعني نين وحكي فهم ماها وعسكري أنا قول لهين ويسقي أنت لا شقي صعبة مركب وحويا إن شاء الله حوق يكوي مع الدين من لم بدأ ما كبدن بالغ صاريا وحاولوا نكحون هذا اليردا يسوع مارت خلدان مساكين تاي توليك سو قرين إليهن مارت دجال كجلا كود دجال لما ديجنا دادية kuwaasaan leeyahay war iskaga noqda meesha goocha cad meelaad ku neegaanaysaan ma aha waa loogiya iskaga noqda inta goor tahay dhiigna ha ku daadinina annaguna dhiigina dooni mayna hadaanu nahay reer SSC la baxa caruurtiidan waalidiinta oo kuleenahay hadaadna maqlaysaan marka halkaas dagaal uu ku dambeynaya xaalku Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyaha baarlamaanku ahaa talaabo fiican buu qaatay tii laga filayay weeye isagoo dhiig daadanayo inuu kursiga ku fadhiyo marnaba sharaf ugu ma jirin waa ku taageersanahay 100% tii loo baahnaa baan u sameeyay waxaad ogaataa dhalinyaro ka horeysay baa iyana jirtay oo u tagtay cayaaraha oo markii ay dagaal ku dhacay intaan dagaal ku dhicin baan leeyahay ka dhidhi arrimaha ka soo noqday niman kale oo waxaa jiray jagooyin ka hayay dawladda xukuumaddaas xukuumad ku sheegtaas Somaliland oo ka soo baxay baa jira inta ku hadheena waxaan ugu baaqayaa war iskaga soo taga meesha dadkiina la midooba oo maanta dagaal baa lagu jiraay maanta meelaad uga hadhaan dadkiina ma jirto nin walba taariikhdu waa qoraysaa inta ku hadhay waxaan leeyahay isaga soo baxada inta goor tahay hadeera maaragtay tala idin la gudboon tahay kaalay oo dadkiina dhinac ka raaca Cabdirasaaq Khaliifna waa u tahniideynaya talabadii loo baahnaa buu sameeyay talabada tinima oo sharaf leh ayuu sameeyay waana maaragtay tii looga baahnaa buu sameeyay maanta waa nin reer SSC Khaatuma ah aanan ku tashanayno insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay jagooyin fiican ka qabto hadii dawladda Khaatuma aan markaan dhiso dawladda Khaatuma haliyay baan ninka u haystaa ma absolutely waa dadku isku mid ma aha dad baa ka dhidhiyay dad baa diidan dad baa ka soo horjeeda talaabooyinka uu qaaday dad aanu ka filaynay in ay talaabadaas kala qaadaan oo aan qaadina waa jiraan culimadu ay ka mid tahay laakiin inta runtii hadashay ee ka dhidhida dhibta meesha ka dhacday ee tirinimada dad walaalaha dalkooda looga soo baxo waanu taageersanahay 100% niman dhageystaa jiro jaacan shabeel la yiraahdo si fiican u hadla dhalinyaro kale oo iyaguna diido yiri maaragtay nin ma xukumi karo Soomaali way isbaratay qabiil ka adkaan karaa ma jiro ama ummad ka adkaan kartaa ma 30 sano inuu dagaalamayna hadii la kala adkaan karayo nin waliba meeshiisii buu joogaa ma after maartay baab iyo dhibaato aynu soo marnay marka inta garatayna waa taageeraynaa inta aan garan wali leh hala baab iyo halagu dooro dhulka hala baabiyana waxaanu leenahay ka waantooba arrinkan waa iska dhamaanaya war wax la halaanu leenahay war u sheega walaalihiin inay maartay kala baxaan askartooda meesha nin walba taariikhdu qoraysa taariikhdan nin walba meel uu ka gelayaa saas weey walaal runtii waa su'aal wanaagsan weeye waana run waxaad ogaataa waxa ku sugnaa 14 garaad hal garaad baa ku sugnaa laascanood intaan dhib kana dhicin garaadada kale yani banaankii ka joogeen mana ay iimaan karin
markii hadda dhibkani dhacay garaadadii waa soo wada galeen nin walibana maqaamkii laga rabay buu qaatay waana runtii musabixi waa isku haya duubay maanta ummad isku duuban oo isku mid ah ayaanu nahay annagoo quramahay dadka gobolka dego oo dhan iyo dadka soo hiiliyay oo dhan baa isku duuban qoliyahan dacaayadda fidiya waxay yidhahdeen war huwan ma nihin annagu huwan ma nihin dadka soo hiiliyay huwan bay ku tilmaamaan huwan ma nihin isaga kiin dhowin ma garatay marka nin kastoo noo soo hiiliyay meel kastuu ka yimaadana waa ammaanan yahay afarta koone meeshuu ka yimaado waddanka waa soo dhaweynana nin kastoo ka dhiidhiyay arrimaha marka waxaan leeyahay waa dhowdahay guushu waa dhowdahay insha allah maalinta waxaad arkaysaa SSC oo xora oo dowlad goboleeda oo shaqaynaysa oo maamul leh oo ka tirsan ummadda Soomaaliyeed horumarka doonaysa inta kaleeto ee ka soo hadhaye beesha dhaxana waxaan leeyahay war ummadda soo raaca Soomaaliyeed go'doonka waxba tari maayo meelaad istaagtaan maanta heli maysaan adduunku waa isu wada imaanaya ka waantooba waxa aad wadaan baan leeyahay aad iyo aad cadeymaa la hayaa ninka hubka ku soo daldalaya siinaya tababarka siinaya askartooda hubkii casriga u soo iibinaya ila iyagu dawlad ictiraafsan ma aha adduunka sanction baana saareen ogow cunaqabateen hub baa saaran meel hubka heli karaan ma jiro hubabka hadda lagu arkayo gooja cadde waxa weeyaan waxa soo diray in Umar Geela soo diray Djibouti bay ka yimaadeen waana la hayaa qaar la sawiray loogadoodii lagu arkayna sida la sheegay waa jiraan marka taasi ma qarsoona ummadan kama dahsoona hadduu isleeyahay in Umar Geele lacag dacaayada bixiyo haka masaxanto arrinkaas kama masaxmayso caddayn baanu haynaa waana la hor keenaya ummadda dagaalkan aad buu ugu jiraa aad buu ugu soo hiiliyay nimanka cadowga ee meesha haysta dhiiga daadanaya qayb buu ka yahay dhiiga daadanaya gobolka Sool qayb weyn ayuu ka yahay isaga u dhisana waa la xisaabtami doonaa insha Allah maalmaha ka mid waxa weeyaan markaynu dawladda adag ahayn runtii Djibouti naga xoreynay lacagtii Soomaaliyaana lagu dhisay meeshaana Soomaaliya baa soo gaarsiisay waxa weeyaan markii Soomaaliya baabaaday oo ummadeedii qaranjabe ku dhacay way naga faa'iideysteen runtii dilaal bayna noqdeen oo inay kala dilaalaan oo adduunka lacag ka qaataan oo ciidamadooda ay Soomaaliya keenaan oo ciidamadooda mushahar ka qaataan ayay maartay bilaabeen in Soomaaliya baabaasanaato oo halka joogtana iyaga danba ugu jirta Djibouti waa meel yar oo gobolka Sool nuskii leeg marka waxa weeyaan maanta wuxuu helay yani fursado waaweyn buu helay intii Soomaaliya baabasanayd gobolka Igad baa laga ictiraafay waaba mararka qaarkood horjooga waa looga doortaa marka waxa weeyaan ma dooriyo maqaamka oo hadda helay inuu iska baabi'iyo inuu Soomaali cagta ku sii hayuu doonayaa laakiin insha Allah Soomaali waa soo imaan doontaa waa midoobi doontaa halkiisii buu ku noqonayaa ogow wixii uu dambi inaga galay waa qorantii 4.5 meesha laga keenay meel kale maaha Djibouti baa laga keenay waan garanayaa barnaamijka ugu horeeyay koob xildhibaan baa laga soo doorto isaga beeshiisa ah sidee ku heleen 2% xataa kama degaan wadanka 1% kama degaan wadanka marka waxa weeyaan in Umar Geele ayaamihiisu waa dictator weey ayaamihiisu waa qoran yihiin haddii xukuumad ka fiican xukuumaddaasi timaadana waa soo dhaweynanaa oo ma garatay Soomaalidii aan dhex gelin oo baabi'in oo wixii qaladkii ay samaysay dib uga noqotay laakiin inuu Umar Geele iyo maanta sida Djibouti la dhaqbayo si Soomaali u dul qaadan karta maaha isagana faa'iido ugu jirta in Soomaali ay baaba'sanaato oo ka faa'iideysto kilinka shanaad waa wanaagsan yihiin kullay annagu haddii aanu reeraysiinahay berigii maxaan ku raajay jabada ogaaday la cunaqabateen la baacinay waxaanu magarta u sameynay abaal weyn baan u sameynay dadaan walaalnahayna waa nahay oo isku haybnahay oo magartay wada dhalad iyo dal iyo deegaanba naga dhaxeeyo maantana maasha Allah waa ka xun yihiin waxa meesha maartay ka socda runtii annaga aan bacodsanba inay maartay taageero noo soo fidiyaan laakiin haddii loo baahdo waa gaadhaynaa waana weydiisanaynaa in maartay in taageero ay nooga timaado marka anigu waxaan qabaa dawlad deegaanka Soomaalidu waa loo baahan yahay aad baanu annagu hadda aanu maartay wada xidhiidhnaa oo wada shaqaynaa wallahi niyo weerar Soomaalidu waa mashruuc weeye siyaasadeed waxa isu haansho iyo dhiig iyo dhaqan iyo dhalasha midna kama dhaxayso nimanka koonfurta annaga iskaga dhow annaga ma garatay
dhaqan iyo deegaan naga dhaxeeya iyo dhalashaba naga dhaxaysa marka waxaan u malaynayaa irir samalaha la sheegaya wax soconaya ma aha wayna og yihiin dadka koonfurta degaa iyaga qudhooda waajib baa ka saaran inay sool nala xoreeyaan sababtoo ah dee qadiyadii waddanka weeye waddankan inuu burburo iyo inuu isu soo noqdo arrinkaas sool baa kala cadaynaya haddii maanta SSC sool iyo sanaag iyo cayn aanu ku fara adeegno oo cadowga iska saarno oo meel walba laga soo heliyo Soomaaliya dib bay labadeedii lagu isu taagaysaa dawlad adagna noqonaysaa marka dad badan oo koonfurta jooga runtii qadiyadeeda aad u soo dhaweeyay baa jira ma sha Allah de waa ummad Soomaaliyeed weeye ummadda Soomaaliyeed wax walba waa leeyihiin nimanka siyaasiyiinta runtii xamar jooga rag badan baa anaga nala jira oo qadiyada u arka qadiyad maartay runtii sidii ay tahay loo dhigay ay sax ku tahay de garaadadii waaba tageen ba garaadadii waa tageen xamar bay tageen aad baana loogu soo dhaweeyay runtii beelahay la kulmeenna wanaagun bay ka sheegeen insha Allah way ka qaab qaadan doonaan xoreynta in maartay inta yar hadhayn laga kiciyo nimanka gooja cadde marka koonfurtu de waa soo dhaweynana walaal aad baan u soo dhaweynana qabaa'ilka koonfurta ee doonaya maartay iyo siyaasiyiinta reer koonfureedka doonaya maartay in ummadda Soomaaliyeed mar labaad lagu helo isku taagto de waxa weeyaan runtii reaction anigu kulli aan la yaabay bay ahayd sababtoo ah madaxweyne ayuu ahaa inuu ka gaabsado marnaba ma aha inay yiraahdeen ahayd geeska gees ilaa raas Kambooni ilaa raas Casayr waddanka ana madax ka ah inuu yiraahdo ku dhiirado oo yiraahdo meel kasto dhibaato ka taagan tahayna ana xalilaya meeshii ciidan leega baahan yahayna waa geenaya iyo dagaal inaan ku xalilo meeshii nabad la rabo inaan ku xalino oo ku xalilaya marka marnaba inuu ka gaabsado may ahayn ayaanta waxaan u maleynayaa madaxweynaha inay ka yara hoostay inuu ku adkaysta la rabay uu yiraahdo ma garatay waa dal iyo dad ka tirsan ummadda Soomaaliyeed ee xuduudka Soomaaliya ku jirta haddii caawimadayga baahdaan uu soo gurmanaya waana u imaanaya waxna waa ka qabanaya waa daragtaayo tigriinihii jira waa go'aynaa Itoobiya ka go'aynaa inta kharash ku baxay inta ku baabada waa daragtaa marka ninka yiri waddankan isku haynaya de madaxweynuhu u dhaartay waddanka waa ilaaliyay qaranka marka inuu ku yara dhiiraday ahayd waxba ku dheeraan maanta waa ka degay nin kala meeshii jooga kan uun inaan la xisaabtano weeye bal sidoo uu maartay tallaabooyinka uu qaaday iyo sidoo annaga noola dhaqmo